haddii aad ku dhiban tahay inaad samayso iibkaaga ugu horeeyay ee Dollars Affiliate Network, dhibaatadu maahan adiga, ee waa habka aad wax u iibinayso. Muuqaalkan waxa uu ku soo koobayaa 10 xeeladood oo haddii aad si dhab ah u raacdo, kuu sahlaysa inaad seelkaagii ugu horeeyay ka samayso Dollars weliba si fudud. Marka hore, aan ka hadalno qaladka ugu weyn ee affiliates badan sameeyaan. Dad badan waxay galaan website-ka, waxay arkaan sharaxaadda productiga, kadib si toos ah ayay u koobi-gareeyaan oo kadibna u dhigaan statuskooda ama TikTok-kooda. Tani ma shaqayso, sababta ayaan idiin sheegayaa. Sababtoo ah dadku waxay rabaan qof fahmay waxa uu ka hadlayo, ma ahan qof wax koobi-gareynaya. Productiga research ku sameey, kadibna soo fahan. Inaad fahanto productiga waa muhiim. Inaad aragto wax uu xalinayana aad taqaano waa muhiim. Kadibna waa inaad samaystaa xayeysiin kuu gaar ah oo unique ah. Taasi waxay kaa saacidaysaa inaad si fiican u sharaxdo productiga. Qodobka labaad, fadlan hal product oo kaliya focus ka saar. Ha isku dayin inaad products badan isku darto. Adiga dukaan ma tihid. Dooro hal product, ku dadaal, iib ka hel, kadib u gudub mid kale. Dad badan oo waxaan arkay product badan isku daraya, kadibna Linktree isticmaalaya walaal heerkeedii weli ma gaarin. Affiliate cusub haddii aad tahay, kaliya hal product qaado, halkaas product linkigeeda ama TikTok saaro haddii 1k ka badan aad haysato, haddii kalena meelaha kale ku xayeysiiso. Halkaas product markii aad iib ka hesho, mid kale u gudub insha Allah. Qodobka saddexaad, ha u ekaan qof wax iibinaya si qasab ah oo xoog ah qof wax u iibinaya ha u ekaan. Qaabka ugu habboon oo saxda ah waa marka hore ka hadal dhibaatada qofka haysata, kadib keen xalka kaasoo ah productiga, kadibna ku dar linkigaaga. Markii aad ka hadasho dhibaatada, like haddii qofku uu ka cabanayo dhib hebel iyo hebel, xal hebel ayaan u haynaa, linkigan ka gado. Saasoo kaleeto waa qaab fiican oo wax lagu iibi karo. Qodob kale oo muhiim ayaa jiro, mar walba dadka u sheeg sida loo iibsado. Tusaale, waxaad dhahdaa linkigan ku dhufo, kadib WhatsApp ka dalbo. Haddii aad muuqaal sameynayso, cod ahaan ugu dar qaybta ugu dambeyso qaabka loo gato, adigoo sheegaya in linkiga qofku ku dhufto, kadibna WhatsApp ka dalbado. Haddii aad sawir iyo muuqaal promote gareynaysidna, qoraalka hoos aad ku qoraysid, qaybta ugu dambeyso waxaad ku dartaa qaabka loo iibsado. Kadib qofku wuu fahmi doonaa in waxaan linkiga dhexdiisa laga dhex iibsanayo. Haddii aan ka hadalno contentiga marka, inta badan videoga ayaa ka fiican sawirka. Laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiim ah ku daro. Kuma qasbanid inaad isticmaasho kaliya media kit-ka ku jiro website-ka ama muuqaalada lagugu sii diyaariyo affiliate inay caawiyaan. Muuqaalkaas inaad isticmaasho 100% kuma qasbanid. Haddii aad heli karto muuqaal kale oo isla productiga ah ama content aad u fiican, waxaad isticmaali kartaa isla ayada muuqaalkaas aad heshay. Laakiin waa in uusan noqon muuqaal sharci darro ah ama uusan ku jirin wax aan ku habboonayn xayeysiinta, tusaale qof qaawan oo kale. Haddii aad rabto inaad isticmaasho media kit-ka Dollarsom oo muuqaalada ku jiro Dollarsom, ayagana waa isticmaali kartaa. Qaar badan oo affiliates ka mid ah waxay ku dhiban yihiin inay soo download gareystaan sawirada ama muuqaalada ku jiro website-ka. Halka dadkaas waxaan kula talinaynaa inay screen record sameeyaan oo screen video ay ka duubtaan muuqaalka ay rabaan, kadibna ay promote gareeyaan. Tani waa xal fudud oo shaqeynaya. Videoga, maadaama aan u dhahay videoga ayaa ka fiican sawirka marka wax la promote gareynayo, videoga wuxuu leeyahay soo jiidasho badan, in badan ayaad wax ku sharxi kartaa cod ahaan, kalsooni badan ayuu leeyahay, engagement badan ayuu leeyahay qofka, si fiican ayuu u dareemayaa wax laga hadlayo. Isticmaal meesha aad ku xoog badan tahay. Waxaan ka wadaa, haddii Facebook aad followers badan u haysatid, Facebook isticmaal. Haddii TikTok followers badan oo 1k ka badan aad haysatid, isla asiga isticmaal. Haddii aad WhatsApp qof aad u xiiseeya tahay, WhatsApp dad badan kaaga xiran yihiin, WhatsApp statuska waa isticmaali kartaa. Marka hore targetka sax horta. Haddii skincare aad haysiinayso, TikTok isticmaal. Waayo meeshaas dhalinyaro ayaa ku badan oo skinkooda ka taxadara. Haddii supplement aad haysiinayso, supplement inta badan dad waaweyn ayaa gata ama middle age ah, dadkaasna inta badan Facebook-ka ay isticmaalaan. Sidoo kale TikTok way isticmaalaan. WhatsApp statusko waa meesha ugu kalsoonida badan. Sababtan waxay tahay qofka si personal ayuu ku yaqaanaa, waxa uu ka hadlaysana wuu fahmi karaa oo qofku yaqaano waay.
inuu adiga wax ka iibsadana way fududaanaysaa. Sidoo kale qof WhatsApp kugu jira ama nambarkiisa aad haysid ama aad xiriir la leedahay, aad ogtahay in productiga aad xayeysiinayso inuu u baahan yahay, isla productigaas linkigeeda iyo muuqaalkeeda ama sawirkeeda ayaad u diri kartaa, kadibna linkigaada ayuu ka iibsan doonaa. Qodobka xiga maxaa waaye marka? Joogteynta. Qodobkan aad ayuu muhiim u yahay. Maalin walba post garee ugu yaraan 2 jeer. Dabcan maalinta koowaad ma heli doontid siday u badan tahay. Waxay u baahan tahay joogteyn. Maalintii inaad mar soo dhigtid, mar kale soo dhigtid, mar saddexaad soo dhigtid, xilliyada ugu bedeshid, mar habeen soo dhigtid, mar subax soo dhigtid. Markaas maxaa fahmi doontaa marka in maalinta ka dambeyso clickskaada ay sii badanayaan, qaabka aad wax u promote gareynaysid iyo xirfadaada affiliate marketing-ka ay sii laba jibaarmayso ayaad fahmi doontaa. Kadibna wax inaad iibeyso way fududaa doontaa. Reposting strategy samee. Hal product marar badan oo kala duwan isticmaal. Dabcan dadka ku daawanayo marka koowaad ma arki doonaan. Waxaa laga yaabaa mar labaad ama saddexaad inay ku arkaan kadibna ka iibsadaan. Laakiin haddii aad hal mar wax soo dhigto kadibna aad sugto in halkaas post aad iib badan ka hesho adigoon shaqo kala qabanin way adkaanaysaa midaas. Haddii aadan ahayn qof followers aad u badan haysta, dad badanna ay ku xiran yihiin. Social proof waxa la ayaa jira. Waa inaad kalsooni abuurtaa. Dad badan ayaa isticmaala productigan oo kale. Maxay caawinaysaa marka in qofka kaligiis laga iibinin productiga ayuu dareemi doonaa. Sidoo kale personal angle ayaa sameyn kartaa. Haddii aad taqaan qof isticmaala productigaas waxaad dhihi kartaa aniga ayaa arkay qof productigan isticmaalay ama waxaan maqlay qof productigan uu caawiyey. Sidoo kale qodob aad muhiim ah waa qodobka dardargelinta oo loo yaqaano urgency. Qofka haddii uu dareemo in waxaan ay xadidan yihiin wuu iibsan doonaa. Waxaad muuqaalkaada ama qoraalkaada ku dartaa productigan stockgeeda uu xadidan yahay oo alaab yar ayaa ka taala. Degdeg u dalbo si uusan kaaga dhamaanin. Qofku waxay ku abuuraysaa in uu hore wax ka iibsado, sales badan aad samaysid. Sidoo kale haddii aad rabtid level sare inaad gaartid, khibrad badanna aad u leedahay qaabka wax loo xayeysiiyo, waxaan ku talinaynaa 100% in qofku uu isticmaalo Facebook ads. Haddii aad leedahay kaar banki ah, $1 ama $2 maalintii ku bilow xayeysiin. Maxaad helaysaa marka adiga? Waxaad heli doontaa dadka aad u baahan tahay, aad si toos ah u target gareyn doontaa. Facebook maadaama uu hayo xogta qof walbo isticmaala aaladooda, waxaa fududaanaysa dadka hore productka u raadinayay ama search gareynayay ama daawan jiray in si toos ah loo tusiyo xayeysiintaada, kadibna ay si fudud u iibsadaan maadaama ay hore u xiiseynayeen productiga. Taasna Facebooka ayaa kaa caawin kara. Facebook ads waa qodob aad muhiim u ah. Waxaad ku promote kartaa maalin kasta $2 ama $1 ama in ka badan. Haddii aad dad badan rabto lacag ayaad gelinaysaa. Kadibna sales badan ayaad sameynaysaa maadaama aad targetingka Facebook uu aad u fiican yahay. Qofka age-kiisa, da'da uu jiro, goobta uu joogo, wax walba aad xulan karto. Adiga aad maamuli karto qofka daawanayo content-gaada. Facebook ads waa ayadana level sare oo advanced ah. Marka gunaanadka waxaan ku talinaynaa in joogteynta iyo qodobada aan ka soo hadalnay si fiican loo joogteeyo. Marka hore faham, si fiican u faham waxa aad sameynayso, kadib ficil la imaaw, kadib joogtay. Waxaa shaki la'aan heli doontaa iib aad iyo aad u badan. Si fiican ayaad u fahmi doontaa qaabka uu shaqeeyo affiliate marketing-ka. Marka aad hesho lacagtaada ugu horeysa, kalsooni ayaad dareemi doontaa. Haddii aad rabto inaad guuleysato marka hal product focus ka saar, si dabiici ah uga hadal, inta badan video doorbid. Haddii aad sawir xiisayso inaad isticmaasho qoraalna waa fine, wax dhib ah kuma jiro. Joogteyn samee. Joogteynta aad bay muhiim u tahay. In hal post aad soo dhigto ha sugin in postigaas uu kuu shaqeeyo lacag badan aad ka sameyso. Isticmaal xeeladaha aan soo sheegnay oo dhan, kadibna guushu way dhowdahay. Guushu nasiib maahan, waa xeelad, ficil iyo joogteyn. Haddii aad wax su'aal qabto waxaad nagu soo hadli kartaa buuqa. Aad ba u mahadsantihiin muuqaalkan daawad.